daawadayaasheeda qiimaha iyo qaayaha mudana waa barnaamijkii fanka iyo suugaanta idinkana imaanaya stuudiyaha Royal 24 ee bariga Sacuudi Arabiya ee magaaladiisa Dammam. waxaa caawa barnaamijka noogu qariib ah fanaankii qaaliga ahaa waana abwaan waana heesaa Yuusuf Xasan Jaamac Yuusuf Cilin. waxaad Yuusuf ku soo dhawaataa Royal 24. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan marka hore u mahadnaqayaa telefishinka qaaliga ah intaan barnaamijka u gudagelin taariikh nololeedkaagii waxaan jecelahay inaad noo soo bandhigtid. taariikh nololeedkayga anigu waxaan ku dhashay magaalada Ceerigaabo 1962 waxaan iskuulkayga dhexe ka baxay magaalada Ceerigaabo. waxaan dugsigayga sare ku dhamaystay magaalada Burco dugsiga sare ee Sheekh Bashiir Burco. waxaan jaamacadda ka galay Lafoole kulliyadda waxbarashada ee Lafoole ee degmada Afgooye. kabacdi adalku wali waa kabacdi abwaan fanaan baa tahay marna waad heystaa xagee fanka ka bilowday? fanka waxaan ka bilaabay ubaxa kacaanka maalintii aan ahaa dugsiga hoose dhexe ayaan fanka bilaabay. waxaana aanu classmate ahayn wariyaasha dalka ugu qaalisan hadda maxamuud xasan jaamac maxamuud Soocade. maalintii aan fanka bilaabay waxaa lii keeni jiray daabuurka iskuulka nin walba soo yaqaano halkaasaan ka heesi jiray. abwan fankaagu ma hawl yara goormaad is ogaatay inaad hal abuur samaysid ama aad noqotid fanaan? waa su'aal aad iyo aad u qaali ah. waxaan is ogaaday 1980 or 79 ma saxi karo waqti badan baa ka dambeeyay laakiin kooxdii horseed ayaa magaalada Ceerigaabo noogu timi. waxaa watay Cali Sheekh Jaamac iyo abwaanka qaaliga ah ee fanaanka ah ee musicianka ah ee mulaxamka ah Barre Maxamed Fiidow. maalmaha ka mid ah ayaa aroos Ceerigaabo iyadoo ruwaadu socoto lagu qabtay. Barre Maxamed Fiidow oo musiciana oo kamaniisa ayaa Cali wuxuu ku casumay aroos aanu anagu iska lahayn. arooskaas uu yiri fanaan baa noo jooga waa la tijaabiyay. maalintaasaan is ogaaday Barre Maxamed Fiidow baa ugu horeeyay wax iraada fanaan baa tahay. maalintaasaan ku dhiiraday inaan fanka galo aan ahay nin fanaana. abwan heestii kuugu horeysay ee adigu ka abwaan ahaan ama ka fanaan ahaan aad leedahay ama aad qaado ina ma xasuusataa? waa su'aal qaali ah. heestii ugu horeysay ee aan qaado ee aan anigu sameeyay ee aan anigu la xamaystay ee aan fanaanka ka ahaa ee qaadayay waxay ahayd heesta la yiraahdo Laas Qoray. waana heestii kuugu horeysay aad ku soo caanbaxdid? waa heestii ugu horeysay ee aan qaado ee aan ku soo caanbaxay. xilligii fankii Soomaaliya fanaaniin badan baa jiray. waxaa jiray hobolo badan inkastoo magacyo badan lahayn waa bari door magacyo badan lahayn. inna ma isku day inaad ka qayb qaadatid fanaaniintii hore ee Soomaaliya? waa su'aal aad u wanaagsan. wax badan baan isku dayay inaan ka qayb noqdo kana qayb noqday. waxaa jirtay inaan ka qayb noqday kooxda Iftiin kooxda Onkod oo aan waliba Onkod la qaaday ruwaadii ugu dambeysay markii Muuse Ismaaciil Qalinle ilaahay naxariistiisa ka waraabiyo uu dhintay. actorna waxa ka ahaa Qoomaal. actor ku xigeenna waxa ka ahaa Jaamac Raaxon in la yiraahdo. waxaan ahaa anigu actoradii akoordada la oran jiray ee raacay ruwaadii ugu horeysay Onkod baan raacay ilaa iyo Baydhabo baanu soconay. marka kooxda Onkod waxa haystay ninka la yiraahdo Darwiish
markaasuu darwiish wuxuu markaanu habeenkii baydhabo ka dhignay habeenkii labaad buu darwiish yidhi xamar ha lagu soo xiroodo sidii baanu xamar ku gallay anigu walaweyn baa ma kaga hadhay waayo fanaaniintu waxay ahayd private iyo professional fanaaniin private baa jirtay oo aan loo ogolayn fanku wuxuu ahaa markii hore fan cidhiidhi ah ma ahayn fankan maanta jaanis baa loo helay fanaaniintu waxay heshay jaanis ay ku hawaysato fanka annaga waxaana hortaagnaa aabbahayo iyo hooyo waalidiinta xataa faamiliga aad ka dhalatay ee commonka ah may jeclayn oo raalli kamay ahayn taasaa noo suurto gelin weyday inuu fankeegu shaacbaxo ama suurto galo saas la ajligeed baan uga hakaday laakiin fanka waan ku biiray fanaaniin badan oo caana oo la yaqaano oo jiim sheekh muumin uu ka mid yahay oo cabdisalaam jiimi uu ka mid yahay baanu anagu wada shaqaynay oo uu ka mid yahay baasto ikar allah yarxam fanaaniin badan oo Soomaali fanaaniinta qaaliga oo professionalka baan anigu la qaaday oo barnaamijyo la sameeyay oo aan la hawl galay laakiin imay suurto gelin in practically uga qayb galo aad baad u mahadsan tahay abwaan yuusuf fanaanku markuu fanka soo galo markuu ku cusub yahay sabab badan buu soo galaa fanaaniin markaa ka horeysayna way jireen marka fanaaniintii markaa jiray ama dadku xiiseynayeen adiga ka abwaan ahaan ama ka yuusuf ahaan fanaaniintee markaa aad u xiiseyn jirtay oo soran jirtay goormaad fanaanka fulaan ama hebel heerkiisa gaadhaysaa waa su'aal aad u qaaliya waxaan jeclahay fanaaniinta Soomaaliyeed ee fanka inaga horeeyay maxamed salamaan tube waxaan jeclahay ninka la yiraahdo digfer oo agteeda qaali ka ah oo aan heesiisa aad u qiimeeyo cabdi tahliil oo aan heesiisa qaado saddexda fanaan baan waxa ragga ugu jeclaa aad baad u mahadsan tahay daawadayaashada qiimaha iyo qaayaha mudanow weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijka fanka iyo suugaanta uu marti caawi inoogu yahay abwaankii weynaa yuusuf xasan dheere ama yuusuf cilin hadba sidii dadku yaqaan weli maynan gudagelin barnaamijyadii ama riwaayadihii uu abwaanku matelay iyo heesihii uu markaa riwaayadaha ka qaaday iyo heesa jacaylaba heesa aad u fara badan baa markaa inoo dhiman marka waxaan yuusuf ku leenahay dalkii waxaad ii sheegtay inaad 90gii ka timi dalka Yemen gaar ahaan magaaladiisa Cadan halkaa waxaad ku matashay riwaayad aad ugu tala gasheen markaa wadcigii markaa taagnaa ama Soomaalidii markaa tahriibta ku jirtay ama qaxa ahayd heesta magaceeda waxaad ugu magac darteen ama diid ama yeel inkastoo dadka qaar u yaqaanaan isha muruqma ka galay marka riwaayada bal sababaha u dhigteen iyo macnaheedu markaa xambaarsanayd bal nooga taabo waa su'aal aad wanaagsan waxa la yiri been fakatay madaxweynaha xasan sheekh maxamuud baa wuxuu yiri been fakatay runimo gaadho riwaayadan Soomaalidu waxay u taqaanaa isha muruqma ka galay laakiin saraaxa riwaayadan waxa la yiraahdaa ama diid ama yeel dantu waa mahuraan waxa riwaayada tan iska alifay oo lahaa midhaheeda iyo suugaanteeda nin la yiraahdo Allah yarxam uu dhintay xasan diiriye anigu waxaan ahaa aktarka koowaad ee riwaayadaas waxa la yiraahdaa ama diid ama yeel dantu waa mahuraan waxa riwaayada aanu ka alifnay markii aanu anagu dalka ka soo qaxnay macallin baan ahaa graduate jaamacad ka soo baxay iskuul sare inuu dhigo andigay markaaba dugsiga sare bartamahan macallinka waxay noqotay inaan noqdo nin xamaala oo dhagax gura mashaakila warka waxa weey ama diid ama yeel dantu waa mahuraan waxaan la huraynin dhagaxa inaad gurto la duruufta ku kalifis taasay ku timi abwaankuna uu ka sameeyay anagu markaa fanaaniin yar baanu ahayn laakiin alaaburku u bilaamay laakiin heerka uu markaa xasan diiriye joogay maanaan joogin riwaayadana isaga iska laha anagu fanaaniin baan ka actorka koowaad baan ka riwaayada ayada wali waxaan ku jirnaa riwaayadii ama diid ama yeel
heesa badan baad halkaa ku soo bandhigteen heesii oo dhan ma soo wada qaadan karno marka heesii marka waxaan ka soo qaadanaynaa heestan Allahu Akbar adigoo marka ereyada aad heestan qusayso iyo macnaha ay ku fadhido bal ereyada wax ma naga maqashinaysaa waa su'aal aad u wanaagsan waxaan jeclaa iyada oo muusigeedu uu saaran yahay inaad maqashiyo laakiin maanta ii suurta gelimayso waxaan jeclahay erayadeedii inaan idin maqashiyo asxaabta maantii uxud lagu dagaale la idliyey gaalada waa tii aroor hore cumar oo dajabiye adduunyaa bilaal yiri Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar aad baad u mahadsantahay heesaha ama abwaanku uu sameeyo ama uu qaadaba kuma koobna riwaayad heesa badan buu leeyahay iyadoo ay ka mid yihiin heesa wadaniya uu qaaday shacabweynaha ama ummadda Soomaaliyeedba iyo heeso iyaguna khaas u ah jacaylka marka dadku siyaabo badan bay qaar baa wadaniga jacayl qaar baa jacaylka jacayl marka bal aynu ku horeyno heesaha wadaniga uu abwaanku isagoo qaarna sameeyay una kuba heesay marka caaw waxaan ugu talagalay inuu ereyada heesahan isagoo noo tirinaya inuu mid walba heestan ugu talagalnay noo soo daayo abwaan heestan wadaniga ah ee ah Soomaaliya maqal maadiga sameeyay midhahaasi wax ma naga maqashin heestan Soomaaliya maqal midhaheeda aniga iska leh muusikada iyo laxanka waxa saaray Ciise Macalin Cabdulle oo saaxiibkay ah أنا كل غيني وحلا سومالي مقال ملقدي ددني مديو ما ملكي حرية ملقدي ددني مديو ما ملكي نقارنيمو ملقدي ددني مديو ما ملكي حرية معنيه نقارنيمو مرهدات كما كتين ماريسن ويدين مهوران دولكيني معدن تو أيكو بيرنيد ما يدقي فوحي مساجدي دقيرتي معلول كتاي غير كامرتي وتاي السنة مقتولي ومرجو يعيل مدكتادو بيحجي متانتي هجوسي ميان قعل مدايو سوعلي مقعو ماندي خشيني علن كي إنومو ده الله مغانا نقدل estas waa heestii Soomaaliya maqal oo isagoo abwaanku erayo kooban inooga qaaday heesaha wadaniga aad u samaysay ma yara marka iyaga laftigooda waa soo koobanaa heestii aad ugu magac dartay carro idig mudan marka macnay leedahay adigoo noo macnaynay erayadana maqashinaya carro idig mudan waxaan tiriyay ana iska leh midhaha laxankana waxa iska leh saaxiibkay Ciise Macalin Cabdulle oo maanta de Muqdisho jooga nolol iyo geeri isagoo xanuunsanayaan waxaan jeclaa inaan telefishinka aan uga hambaliyeeyo haddii uu noolyahay laakiin waxa iska leh muusiga Ciise Macalin Cabdulle midhahana aniga iska leh waxa la yiraahdaa carre idig mudantii ciidan ku noolayn nimcaduna cigaagnayd alfan weyni kibirkii markaan sida cadaawaha culimaa u diinkiyo haweenkii caruurtii cidna dhaafi weyna rabbi noo cadhoodo ciqaabtoodii aragnay hadday caana daataan hanbadaa la celin jiray ama iyo watiin iyo u cuskada qur-aanko eebbe caadil weeye cibaadada u baraxtira waa heestaasina waa heestii carre idig mudan abwaan heesahagu midba mid kama dhacdo heestan kale ee Soomaaliya yaad eersataa iyadii laftigeeda maadiga leh heestan Soomaaliya yaad eersataa midhaheeda waxa iska leh saaxiibkay Ciise Macalin Cabdulle laxanka aniga sameeyay waxa la yiraahdaa Soomaaliya yaad eersataa waxaanu sameeynay maalintii aanu ka soo baxnay wadanka ee aanu nimi Yaman baa waxaanu la kulanay dhibaato aad u fara badan Soomaalidii meeshii way ku soo badatay tuuga timi bulcad baa timi dad wax dhacaayimi dhibaato Soomaalidii ay la timi
waddanka Yemen markaanu eegnay jawigii iyo ninka fanaanka ay jawigu wax ka qoraa baa saaxiibkay wuxuu keenay heestan la yiraahdo Soomaaliyeey yaa deersataa waxa la yiraahdaa heestan midheed waxay ku bilaabmaan qaadistana ana iska leh lahankana ana iska leh waxa la yiraahdaa adduun waa sida harka aroor iyo galab basiye adoo magacaada iyo ammaan iyo sharaf ku nool haddii amar kugu habsado awooddaadii jirtiyo wakacaankii iyo dawladdii awooddaadii jirtiyo ardaa iyo agabba tiro naftu orda mintiyo dambaa tiri kaadkii qaxaagu hadduu ulkamo irdhiya aan fariir ku dhaco oo deriskaa ku arxamo jiiraankii baanu u qaxnay agagas lagu maadsadiyo arkaaqaad lama noqdee asalkii dhalashada iyo diintaa la ilaaliyaa hidaha layskama ambiyo aad baad u mahadsantahay abwaan intaas waxaan ku soo koobnay heesihii wadaniga ahaa abwaanku inkastoo noo sheegay heesihiisa wadaniga ah inay ka badan yihiin heesaha uu jacayl ahaan ama abwaanku sidiisaba hadduu fanaan bayahay ama abwaan bayahay qofka aragtida ama markaa wadciga taagan ee nololeed ama jacayl ahaan heesa badan buu ka sameeyey wuxuu sheegay abwaanku album uu ugu magac daray war la hel yaabo tale la hel albumku waa album heesa badan laftigiisa ma soo koobi karno abwaan heesahan uu ku jira albumka war la hel yaabo tale la hel heesuu aad bay u farbaday ilaa 8 heesood heesta ugu horeysa aan isleeyahay bal shacab weynaha ee jiidali heestaas iyo jiidali iyo midhihii adigoo noo soo koobaya heestan waxaa la yiraahdaa jiidali waxa weeye horta albankan waxa la yiraahdaa war la hel yaaba tale la hel waa albankii ugu dambeeyay markaan Yemen ka imanay aan soo doobo waxa iska kaashaday aniga oo Yuusuf Xasana iyo Ciise Macalin Cabdulle iyo Dr. Cabdullaahi oo Yemen maanta ku sugan saddexdaas ayaa iska kaashanay midhaha iyo laxanka iyo muusiga iyo barnaamijka annaga iska lahayn heestan aan ku soo qaadayo midhaheeda waxa iska leh Ciise Macalin Cabdulle waxa la yiraahdaa jiidali waxa la yiraahdaa inay yahay jaleecada jeedaalo eegmada jahaaga oo qula indhihii u jeedaan ka jeensanayno sida johoradoo kale naf kasta ku jamatee jaangoynta qiimaha rag wuxuu u kala jabay jacaylkii hore iyo jiil looga qaato abwaan heesiyahan albumkan ku jira war la hel yaaba tale la hel waa 8 heesood gaar ahaan waxaan ka soo qaadanay 3 heesood oo isagu abwaanka si khaas ah u quseeyo uu yiri markaa wadciga aniga markaa aan ku taagnaa ama arrimihii markaa ayay baan ka metelay heestaas oo midheeda inooga tabtan waa heestii jiidali hees baad tiri waxaan soo qaatay quruxda ama gobolada Soomaaliya qayb ka mid ah hees baad ugu magac dartay balliga sool heesta balliga sool bal midheeda iyada laftigeeda maadiga aale mise abwaan kala aale abwaan heesaha ku jira war la hel yaa tale la hel lama soo koobi karo heestan balliga sool bal adigu ereyadana maqashiinaya mana matalayeen inaad ballaxan garaacisid heestan maqashay waxaan horta dadweynaha na daawanaya ka raali gelinayaa maanta iyadoo aan muusig aanu noo oolin meesha waxaan jeclaa inaan muusig iyada oo live ah aan idiin qaadno laakiin ma suurtagelayso waxaan jeclahay inaan si temporary aan idinku qaado heesta waxaa la yidhaahdaa balliga sool abwaaniinta badani badda iyo beriga iyo buraha ka heeso baaqiba idin hadhay bela lama ammaano bel laguma heesi baadhitaanka quruxdii hablihii badhbaadhay ma tagteen balliga sool biyadaablamoodii baxsan bilicsan joog dheer horta weli ma barateen basradii hargeysiyo beerululadiiraan
barbarkaad ka egtaba quruxda way ka badisaa. يا سلام aad baad u mahadsantahay waxaad moodaa laxanka laftigiisaba inuu waa aad nooca jabiyey in albankan warli heliya tilehel waxaan ku soo khatimanaa isaga laftigiisa heestii aad ugu magac dartay taleex waa qiso dheer laftigeedu heestaas aad iiga sheekaysay oo markaa arrinta halkaa kaala kulantay marka adigu heestaa iyo midhaheeda bal xoogaa. heestan taleex baa leedhaa khaatumo way noqon kartaa, jacaylkayga way noqon kartaa, waa wejiye badan, laakiin waxaa la yidhahaa xubbigii galgacalkiiyo xariirtaan jeclaaye beriyo soo xasuustaan xudun iyo godaaliyo ximan iyo xadeeday xaruntii taleexay xaysimo nugaal xidhay gobolka weyn iyo xadhaadh bay ku dhaqantay. marka waxaan jeclaa albanka kan isaga oo instrumentigiisii wata waan ku luuqeeyey isagoo qaaciya oo kabana waa la helayaa, laakiin waxaan jeclahay in wiigan gudihiisa ama 2 wiig ka bacdi bishan gudaheeda inaan isagoo instrumentiga iyaga oo dhan aan idiin soo wada saaro oo aan u soo gudbiyo telefishinka qaaliga ah Royal 24 gaar u noqoto. waa gabagabadii fursad baad haysataa caawa studio Royal 24 fursadan yaad kaga faa'iideysanaysaa oo ku salaamaysaa. aad iyo aad baad u mahadsan tahay Awil. waxaan salaan iyo hambalyo iyo bogaadin u dirayaa anigoo ka faa'iideysanaya fursadda uu isiiyey TV Royal 24. waxaan kaga faa'iideysanayaa marka hore salaan waxaan u dirayaa oridayda Maryan Cabdullaahi Fardaale iyo inantayda Ruwayda Yuusuf Xasan. waxaan u dirayaa caruurtayda Ridwaan, Raa'id, Ramla oo kala jooga Yemen iyo Soomaaliya, Sweden. waxaan u dirayaa asxaabtayda qaaliga ah ee ku nool waddanka Sharqiya. caaqilkii noogu weynaa ee caaqilkayga yaan odhan asxaabe waa caaqilkayga waa Kayse Maxamuud Siciid Shibbin waa cambar waa caaqilkii reerka. waxaan u dirayaa saaxiibkayga qaaliga Faraj. waxaan u dirayaa kamaridistaha Cabdulqaadir Maxaad. waxaan u dirayaa asxaabtayda Aamina Cali Xaashi, Najax, Awil oo wariyahaygii qaaliga ahaa ee caawa telefishinka igu wareysanayay iyo xaaskiisa Maryan. waxaan u dirayaa Faadumo Maxamuud Geedi oo ah maamadii qaaliga ahayd. waad maadsantay. waxaan u dirayaa oo aan ka ilaabay fanaaniinta Soomaaliyeed, abwaaniinta, heesaaga, mulaxamka oo jooga meel walbo ay adduunka joogaan. waxaan u dirayaa Maxamed Daahir Jaamac Soolane Masardayo, Maxamuud Xasan Jaamac Soocadde oo wariye ka ah oo saaxiibkay ah oo classmate-kaygii ah oo jooga maanta London, iyo ooridiisa ina Mire Fadeex oo ku nool magaalada London, iyo asxaabtayda kale dama soo koobi karo oo laguma koobi karo telefoonka, laakiin waxaan jeclahay wixii muuqayga iyo maqalkayga ba